الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeeni kasmo iyo kaskaaga qaybtiisii saddexaad oo aynu maanta xooga ku saari doono inaynu kaga hadalno halista warbaahinta cusub. Maasada aynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaana waa maasada magaceeda la yiraahdo Kiiraanyo. Maanta waxaynu ka hadli doonaa halista warbaahinta cusub bulshada ku hayso. waayahan waxa soo baxay in qabiilooyinka Soomaalidu samaystaan meelo ay ku kulmaan oo warbaahinta ah. Waxa kamid ah aaladaha loo yaqaano WhatsApp-ka, Facebook-ka, telefoonada lagu wada shiro iyo wixii la mid ah. waxa ugu khatar badan saddexdan aaladood loo yaqaano WhatsApp-ka. qolka yar ee WhatsApp-ka qabiilku waxay isugu imanayaan iyagoo isjecel oo mid ah. laakiin wax yar kadib way tafaraaruqaan, way isnacaan. waxa u sababa waxa qolka xaq u leh inuu soo galo qof kasta oo qabiilka meesha furtay ka dhashay. sidaa daraaddeed waxa qolka soo gelaya oo ka hadlaya danaystihii qabiilka ka dhashay, tuugii qabiilka ka dhashay, munaafaqii qabiilka ka dhashay, jaahilkii qabiilka ka dhashay, caqli xumihii qabiilka ka dhashay, sakhraankii qabiilka ka dhashay, qabyaaligii qabiilka ka dhashay iyo qaar badan oo kaloo lamid oo la nooca. inta badan waxaad maqlaysaa iyaga oo ku dhololaya magaca odayga ay ku abtirsadaan. marxuumkaas waxaan dhib ahayn magaciisa uma taraan, umana soo jiidaan. waxbay ku caayaan, waxbay ugu faanaan, waxbay ku dhacaan, waxbay ku dilaan. laakiin maalin keliya arki maysid iyagoo xitaa u ducaynaya magaca ay sidaa ugu dhololayaan. marka waxaynu isweydiin karaa aaladan cusub waxay qabaa'ilka Soomaalida u soo kordhisaa waxtar iyo wanaag, mise dhibaatada ay ka helaan ee ka dhaxlaan ayaa ka culus faa'iidada ay u furtaan. xaqiiq waxa ah inta aanay qolkaa furan qabiilku inay wada jecel yihiin, laba qof oo iskood isku nucin mooyaane, laakiin qabiilku 9% ay isjecel yihiin, ay midaysan yihiin, ay ixtiraam iyo wanaag soo hayaan. xaqiiqna waxa ah muddo yar markay qolkaa ku wada jiraan in colaad badani dhalato, in kooxaysi dhasho, in burbur iyo tafaraaruq fara badan oon hore u jiri jirin ay bilaabmaan. way jiraan faa'iidooyin la qabtaa oo war aan markii hore la iska haynin waa la iska hayaa. xidhiidh aan markii hore la yeelan jirin waa la yeeshaa. waxqabadyo aan markii hore si dhaqso ah loo qaban jirin waa loo qabtaa oo ka degdegsiya badan kuwii hore. laakiin intaba waxa ka halisaysan tawfiiqdii iyo wadajirkii bulshada ayaa ku dhaawacma, kaasoo wax wal oo la qabanayaba halis ku noqda, isla markaana ay adag tahay cudurrada ka dhasha sida loo daaweeya. waxaan kaloo doonayaa inaynu bal wax ka yara sheegno iyadana dhinaca qaraabada iyo waqtigan xaadirkaa sida loo xidhiidhiyo. inta badan waxaad arkaysaa dadka oo leh qabiilka waxaanu u ururinaynaa oo isu urursanaynaa inaanu qaraabada caawino oo xidhiidhino. tusaale ahaan markay meelahan furanayaan oo kale, haddaad tirahdo qabiilkayga waxaan u ururinayaa in qaraabada la xidhiidhiyo, waa hadal saxa, wax ceebi kuma jiraan. laakiin waxa khaldani waxa weeye qaraabadiibaa badhna
la xidhiidhinayaa oo la caawinayaa qaarna la goynayaa oo aan caawimadooda la isu urursanaynin iska daa wax kale ee dumarka qabiilku qabaan kuma jiraan qolkooda yar taladoodana ka mid maaha laakiin inanta iyaga ah macnaa qabiilka ka dhalatay ee reer kale macnaha qaba ee u dhaxday way ku jirtaa arrinkooda oo waxbay ku leedahay waxna way ka goynaysaa maalkana waxbay ka bixinaysaa laakiin haddana carruurta ay dhashay ee qabiilka kale ahi kaalmada waxba kuma leh kaalmada ay wax ka bixinayso ee ay arrin iyo adduunba dadka ay la garab taagan tahay kaalmada ay ururinayaan wax allaale iyo wax carruurteeda ku leedahay ma jirto marka wax bixinta iyo cidda loogu horreysiinayo diintu ka hadlayso waxaa loogu horreysiiyey labada waalid hooyada iyo aabbaha kadibna qaraabada lagu xigsiiya kadibna saasay ku socota inaan qabiil loo jeedin waxa markhaati kaaga ah hooyada iyo aabbaha loogu horreysiiyey waayo hooyada iyo aabbuhu mar walba kama soo jeedaan dad isku isira oo isku abtirsiima ah haddaba qabiil iyo qaranba waxa u dan ah inaan cid waliba u fekerin waxase fiican in dadka cilmiga iyo caqliga wanaagsan lihi qabiilka iyo qarankaba u fekeraan oo u dooraan waxa dantooda ku jirto haddii la helo bulshada inay u fekeraan dadka wanaagsani waxaa laga gudbayaa baahiyo badan iyo haliso badan oo maanta lagu jiro waxaa la higsan karaa horumar dhinac walba leh maskax ahaan waa la horumari karaa maal ahaan waa la horumari karaa muruq ahaanna waa la horumari karaa haddii aqoonta iyo caqligu noqdaan hormuudka majaraha ummadda haya waayo caqligii wanaagsanaa iyo cilmigii oo isku dhafan ayaa ummadda jahaynaya oo hoggaano ah oo u jeexaya tubta toosan ee dadku raacaya ee guushu ugu jirto markaa ta aynu isku waaninaynaa waxa weeyaan inaynu had iyo jeer ka fekerno cidda inoo fekeraysaa cidda ay tahay inaynu taa mar walba ka fekero oo xoogga saaro in cidda inoo fekeraysa ee ina jahaynaysaa tahay ciddii ku habboonayd hadday tahay ciddii ku habboonayd waa inaynu garab istaagno haddii aanay ahayn ciddii ku habboonaydna waa inaynu ka leexanno oo markaa doonanno raadsanno oo dhexdeenna ka baadhno dadkii ku habboonaa inay ina jihiyaan iminkana waxa aynu u gudbaynaa qaybtii labaad ee barnaamijka iyo maasadii tiiraanyo waxay tidhi tusmayse anoo lahaa anoo tasadiid ahaa anoo tigtigaaya nacab anoo tebinaaya samo anoo taabaaya limid tabaala guddoon miyaah warkiinnu tabcaansanaa warkiinnu tigraaranaa warkiinnu tunmiiqanaa warkiinnu tukaysanaa macnaha tukuhu shimbiraha ama haadda kuwa loogu necab yahay ayuu ka mid yahay kulli soomaalidu markay tukaha aragto kuma faraxdo warkiinnu tukaysanaa lurkaa toosisaan miyaah sharkaa tidicdaan miyaah waxaan tahaniyeyn lahaa waxaan tiirtiirin laa waxaan sii tahbiibi laa tawfiiqdiyo wadajirkee wahaytani weydsanaa xaqiiqdu ma toogaba miyaan tafaraaruqaa miyaan tolo habarwacdaa waxaan tolla ay ahayn ma haba soo toyaninbaah kuwii isku tiirsan laa miyaan tisku kala xidhaa miyaan tuku kala jaraa miyaan tubta waasacaa tooriya ka dhigaa wadiiq turxaama miyaan dhaqdaa tiiraayo miyaan fashaa miyaan tafantoof korshaa miyaan toltolaa nacayb miyaan tiriyaa xumaan miyaan naxli toojiyaa miyaan toobaa dunuub miyaan tiftifaa dharkayn miyaan tafaqaa samaha toorrey ka arooriyaa midkaan uga turi lahaa takooray miyaan idhaa kuwaan taakulin lahaa miyaan cidlo kaga tagaa
maanoo rabbi taabacaan muraad u tanaasulaa maanoo toosni heli karaan qallooc tab u raadsadaa maanoo qaran tahli karaan qabiila ku taam noqdaa maanoo tala sixi karaan tafaafulku doorsadaa xanuun taranshow nadaa xinsoo turqanow nadaa qodxaha tiinkow nadaa tusmada ma arkow nadaa wadarta tirtirow nadaa tukuba liitow nadaa garaa tabanow nadaa tugnaan magayow nadaa tiisaba dayacow nadaa hunguri timalow nadaa tusaale xunow nadaa hariirow nin toosan baa tilmaan kula garan karee adaan taajka kuu xidhee miyaa waddo toobiyaa toora qalqalloocan iyo tu aan jirin laga maraa adoo ah tiiri weyn ninkii takar kula rabaa miyuu tala garanayaa bulshadu waa tamara badan xaqiiqda qofkii ka taga qofkii tuuree banbaxa ninba anbay tiir sudhaa nintii caayay kabtaa mudnaanta bulshaha tirsi leh tacabkeedaa hantiya xiskiya tashigaa hufniya dhugaha togan baa cilmiya garaadka tijaabin kara turuqa ururaa liba ah samaha taageeri kara wixii maqan tiigsan kara wixii jira taagi kara qaran la dhisaa waxtara haddii webi kugu taqlamo ninkii ku tallaabin laa tin caara miyuu noqdaa miyuu tabaqdhoon jantaa midkuu ku tanaadilaa taftaafka miyuu gayaa inaad gacalkii dahan noqoto oo qofkii kaa caawin lahaa dhibaatada cadow ku noqoto waa mid la yaab leh bulshooy run la taaba iyo wanaag baa lagu tarmaa miyaa xaqa lagu tuntaa tixdiiyo murtidii bulshooy haddaan soo tu'i idhaa adoon tagta fiirinayn timaadada meelu yeel samaani turxaan malee adigu dhib u toogahay maansadii tiiraanyo oo ka mid ahayd maansooyinkii ku soo baxay dhibaatooyinka qabyaaladda ee wakhtigan bulshada faraha baas ku haya intaas bay inoogu eg tahay barnaamijkeenii kasmo iyo kaskaaga qaybtiisii 3aad intaas ayuu inoogu egyahay inta aynu mar kale ku kulmi doono waa aniga oo maxamed kayso oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka bara buugga jidka qoyska toosinta waalidka barbaarinta carruurta tiirarka farxadda tiirarka khilaafka tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo wixii oori wareertiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay haddii eeba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefannada shaashada kaga muuqda